haddii la gaaloobi karo intaas kun doolar lagu siin lahaa gaalnimada caawa ani waa gaaloobi lahay diintan waa ka bixi lahaa wallahi bilaahi daqiiqadan waa gaaloobi lahay caawa intaas kun doolar nolosheeda aan ku raaxaysan karo ku gaaloobi lahay caawa muslimnimadana waa ugu bixi lahaa khalaas. السلام عليكم كلنا وحنا ونكسن صاحبون كسلامي ملو الباع جوكتو كنا سودو channel كنا هديت كل صوتها سبسكرايب صاروا سيدو كلنا موقال كلاكتر سو جارا صاحب بدن ونكسن سيدا ديجو كلام موقال كمان توحن يدين كلو وذاقي دونا هذا الحين تبرها بالشدة كنا لسي فرتون بالبلاركا gabar caan ka noqotay guud ahaan social media fankii Soomaalida xoog ku soo gashay in badanna hadal ay sheegtay maanta gabi ahaanba qulubtii bulsho badan taageero iyadoo ahaa ay ku iloobi doonaan fartuun balbalaarka waxa ay sheegtay in gabi ahaanba ay sagaxayanta ama ay ka baxday diinta islaamka arrinkan culimada qaar ee ku jira baraha social media ayaa aad kaga hadlayay arrinkan يقولي بوحيابها فرتون بالبلاركا هليان كو قزبي كرايني كو هذاقضو إن دينتا إسلام كاي كبحضي. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد وحسبحا آد لوصل الدراية في لوغا قبلان حالي كل واغدي قال لما إن دينتا كبحضي مال والبابا لوصل ميشن قرينا ولوغا لوصل الدراية مال كستو قبتي gabadha inta ka muuqato waa fartuun balbalaarka markii hore dhaqankeeda ma aysan ahayn dhaqan muslim gabadh muslimad ahay oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala rumaysan nabi maxamed nabi ahaan u rumaysan oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala nabigiisa rumaysan ma aysan ahayn gabadhan markii hore dhaqan muslim ma aysan wadan xalina way si cadaysatay haddaba waxaan ku sheegay qofkii go'aansado inuu laba bil kadib diintu ka bax qalbigiisa ku soo dhacdo ee go'aansada ومركز قالوا قفك بالكذب قان صدا مركز قال لي waxaad tiri hadaa maanta lacag $1 hel lahay diinku ka bixlahay isla marka aad kalimada ku dhawaaqdo afkaada ka soo baxday wad gaalowdi islaamnimada waa kala fogtiin maantay waxaad tahay gabar gaal ah muslim ma tihid fartu balbalaar runta ku sheegay hadaad soo laabani waa adig go'aankaaga hadii kale oo diinta ka baxday خلاص halka naga taagna laga bilaabo maanta عندنا waxaad ka tahay gabar gaalowdi oo gaal ah qoliyaha waxa kugu tirinaa gaalada oo Soomaalida ah waxa rabto sheeg muslim baan idhaa noo soo xijabay darajad hadaa rabto ku salaad dadku tinna qof gaal oo kalimadaas aan ka soo noqonin laga ma aqbalay waxaan ku leeyahay waad gaalowday kalimada aad ku dhacday waa kalimad gaalnimo ah diinka waa kaga baxday ku soo noqo diinka ku soo noqo إلهي سبحانه وتعالى أصلا سو أشهد هذا خير دونيس دين تا أصلا هذا خير دوني نن ومر هرب نوج جبني سو مسلم كده ليس ما أنت عديستي قال واحد قالوا دي ردات كل عدي إلهي سبحانه وتعالى أصلا هذا وحلاق قادن كرا إنتني أتهاي متجاجسا واي وحلاقي أبا سعادة صوص عذا إن فرتون بالبلار كيدا هذا وحيجي هاد برانكي waayo Soomaalida ayaa barankiga meel xun ka galay dhanka kale waxaan u fahmi karnaa in arintaasi fartuun balbalaarka ay ka ahayd mid ay runtii hanti ama lacag ay doonaysay inay kaga sameeyso barta YouTube-ka iyo sidoo kale TikTok-ga hadal weyn oo mug iyo miisaan leh ayaa ku hadaaqday isla markaana aan laga aamusi karin fartuun balbalaarka waxaan ka baxay diinta islaamka ay ku tiri muuqaal oo waliba si live ah gabi ahaanba ay ugu jirtay baraha YouTube-ka TikTok-ga iyo Facebook-ga inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un haddii la gaaloobi karo intaas kun doolar lagu siin lahaa gaalnimada caawa ani waa gaaloobi lahay diintan waa ka bixi lahaa waa arrimo laga yaqyaqsado waxaan dhabaanahan baan arkaynay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee caanka ka noqday baraha social media oo ku xadgudbaya Allah subhanahu wa ta'ala magaciisa isla markaana aflagaada u geysanayay nabigeena sooban naxariis nabadgelyo korkiisa aatee iyo sidoo kale qaarkood oo sida haddaba aad maqlaysaan fartuun balbalaarka ay sheegayso in diintii ay ka baxday wallahi billahi daqiiqadan waa gaaloobi lahay caaw $1 nolosheeda aan ku raaxaysan karo ku gaaloobi lahay
muslimnimadana waa ugu bixi lahaa خلاص dabcan waxaanu dhihi karnaa arrimahan waa kuwa in badan ay maalgelinayaan dad aan Soomaali ahayn sababtoo ah Soomaaliya boqolkiiba boqol waa dad muslimiin ah dadka gaalada ahi aysan arki karin waxaana jiro dad badan oo Soomaaliyeed oo hore u sheegay in gabi ahaanba ay ka baxeen diinta Islaamka ilaahay waxaanu leenahay ha soo hanuuniyo fartuun balbalaarka hadalkanna wuxuu noqon doonaa mid gabi ahaanba fartuun ceeb fadeexo iyo weliba fajac ay kaga bixi doonto magaceedii iyo sumcaddii ay ku lahayd social mediaha waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe saaro sidoo kalena muuqaalka like saar si uu gaaro saaxiibo badan oo wanaagsan sida adigoo kale